بسم الله الرحمن الرحيم. marka ugu horeysa anigu waxaan ku tilmaami karaa nasiib daro in madaxtooyada ay la wareegto maanta hawshii xeer dejinta. baryaha waan maqlaynay wasaaradda dakhliga wado waxa la yiraahdo diiwaangelinta madaniga waxaan filaynayse in xeerkii diiwaangelinta madaniga golaha la keeno si loogu ansixiyo diiwaangelintana lagu dhaqo maxaan ku dhahdaa xeerkaas golaha ka soo baxay. waxaase muuqata in laga maarmay aad moodo in laga maarmay hay-adihii xeer dejinta sababtoo ah waxaa halkan ku yaalla maanta aynu arkaynaa xeer uu soo saaray madaxweynuhu oo jidaynaya diiwaangelinta madaniga. xeerka waxaa lagu magacaabay xeer nidaamiye. waxaase isweydiin leh waa kee xeerka uu nidaaminaya. xeer nidaamiye madaxweynuhu ama wasiirku midkoodba waa soo saari karaa, laakiin waxay soo saari karaan kow marka uu jiro xeer kii la nidaaminayay ama mother act ama xeerkii principalka ahaa ee golayaasha sharcigu sharci dejintu ay soo saareen. xeer nidaamiye wuxuu noqon karaa xeer nidaam lagu dhaqan gelinayo xeerka ka soo baxay labada gole madaxweynena uu saxeexay oo sharciya. marka xeerkaasi uu awood u siiyo wasiirka ama madaxweynaha inuu soo saaro xeer nidaamiye ku dhaqan geliyo. xeerarka badankoodu way ku qoran yihiin power delegation of power wax la yidhaahdo ayaa la siiyaa ama awood baa loo siiyaa hay-adda dhaqan gelinaysa xeerka la soo saaray inay soo saarto wax regulation la yidhaahdo ama wax la yidhaahdo xeer nidaamiye lagu dhaqan gelinayo xeerkaas, iyadoo shardigu yahay inay qodobada xeerkaa ku yaalla iyo xaydaanka xeerka aanay ka bixin xeer nidaamiyahaas. waxaase maanta inoo maxaan ku dhahdaa inoo muuqda in iyadoo aanu jirin xeerkii maxaan ku dhahdaa diiwaangelinta madaniga in madaxweynuhu soo saaro waxaa ku magacaabay xeer nidaamiye oo run ahaan ah markaad akhrido xeerkii baarlamanku ansixin lahaa. waan akhriyey ma jiro wax xeera oo halkan ku yaalla oo xeerkani nidaaminayo ama uu tix raacayo. arrintaa waxaan filayaa in madaxweynaha loo hoosgeliyey waayo dhaqan uma ahayn inuu xeerar soo saaro aan baarlamanku ansixin madaxweynaha. waxaanan ugu baaqaynaa in xeerkaa uu la noqdo xeerkaana la keeno golaha wakiilada. arrinta labaad arrintan raacsan waxa weeye diiwaangelinta madanigahi waxaa ka dhalanaya tallaabooyin sharci ah. waxaa ka soo bixi doona dokumentiyaal sharci ah. hase yeeshee haddii asaaskoodii hore aanay diiwaangelinta aanay sharci ku salaysnayn ma yeelan doonaan awood sharci oo la fulin karo ama dadka ay ku waajibinaya in tallaabooyinka loo baahan yahay ay qaadaan. arrinta saddexaad waxaa weeyaan guud ahaan waa la isla qaatay waxaa la isla qaatay in diiwaangelinta madaniga
iyo diiwaangelinta codbixiyaasha ay noqdaan laba diiwaangelilood oo kala soocan oo isbarbar socda oon isku xidhnayn. diiwaangelinta madaxweynuhu uu qoray, wasiirka daakilguna uu qoray waraaqo arrintaa confirm garanaya. maxaan ku saddexda xisbi qaran iyo commissionka iyo xukuumaddu arrintaas waxay ahayd mid ay isla qaateen oo la isku waafaqay. commitment letterkii ugu dambeeyeyna waxaa qoray maxaan ku dhahdaa madaxweynaha. hadda waxay u muuqataa in diiwaangelintii madaniga ahayd lagu xidhayo maxaan ku dhahdaa diiwaangelintii codbixiyaha. hase yeeshee xeerkii diiwaangelinta madaniga ah iyo xeerkii diiwaangelinta codbixiyaasha midna ma soo bixin weli. kii codbixiyaasha haddaanu gacanta ku haynaa, guddigayagaa wada. insha allah fadhigan waxaa la filayaa in maxaan ku dhahdaa lagu ansixiyo. xeerkii diiwaangelinta madaniga ahaa weli ma hayno. sidaa darteed iskuma xidhmi karaan, sababtoo ah diiwaangelintu waxa ay tahay inay bilaabanto September 1 maantana waxaynu ku jirnaa July, June, July iyo August baa hadhay. suuragalba practically suuragalba maaha in diiwaangelinta madaniga intaa lagu dhameeyo. haddii lagu dhameeyana waxay ahayd waxay noqonaysaa in iyadoona xeer lahayn la dhaqan geliyo ama la fuliyo. anigu ma garanayo hadhowto markaas siday u dhaqan gelis waxaan xeerkii maxaan ku dhahay saldhiga u noqon lahaaba aanu jirin. sida looga horreysiinayo diiwaangelinta anigu garan maayo. waxaan odhan lahaa ugu baaqaya wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxweynahaba xeerkii diiwaangelinta in la keeno golaha wakiilada si looga doodo loo ansixiyo. waa mahadsantiin.